bismillaahi raxmaani raxiim. kusoo dhawaada janalka maalmaha. waxaan idinla wadaagaynaa qiso aad u cajiib ah. qisadan ayaa waxay dhex martay imaam maxamed binu siriin iyo wiil yar oo ogoon ah. habeenada ka mid a ayaa imaamu siriin wuxuu soo galay masjid, markaasuu wuxuu arkay wiil yar oo salaad u taagan, aadna moodo tiir meesha la suray, isla markaana uu ka muuqdo khushuuc. wiilkii markii uu salaada ka baxay ayaa waxa u yeeray imaamu siriin, wuxuu weydiiyey waalidka dhalay. wiilkii ayaa ku yiri imaamka, waalidkayga waa uu dhintay. imaamkii wuxuu ku yiri, raali ma ku tahay inaan kuu noqdo aabbo, mas-uuliyadadana aan kafaalo qaado? wiilkii wuxuu ku yiri, waan kuu ogolahay, balse waxaan rabaa inaad 5 shuruud ii oofiso. imaamkii ayaa aad ula yaabay, markaasuu wuxuu ku yiri, maxay tahay shuruudan? wuxuu yiri, haddii aan gaajoodo raashin ma isiinaysaa? wuxuu ku yiri, haa, waan ku siinayaa ilaa aad ka dharagto. wuxuu yiri, haddii aan haraado biyo ma isiinaysaa? wuxuu ku yiri, haa, ilaa aad ka ongoyso waan ku siinayaa biyo. wuxuu ku yiri, haddii aan dhar u baahdo ma ii iibinaysaa? wuxuu yiri, haa, waxaan kuu iibinayaa dharka midka ugu quruxda badan. wuxuu ku yiri, haddii aan xanuunsado caafimaad ma isiinaysaa? imaamkii wuxuu ku yiri, haddii aad xanuunsato daawo ayaan kuu iibinayaa, balse caafimaadka Allah ayaa bixiyo. wuxuu ku yiri, haddii aan dhinto ma isoo noolanaysaa? wuxuu yiri imaamkii, shardigan shanaad aniga ma awoodo, maxaa yeelay nolol iyo geeri Allah ayaa gacanta ku hayo. markaasuu wiilkii wuxuu ku yiri imaamu siriin, haddii aadani caafin karin marka aan xanuunsado, aadna isoo noolayn karin markii aan dhinto, iska kaydaa oo iga tag. markaasuu wuxuu yiri imaamkii, yaan kaaga tagaa? wuxuu yiri, waxaad iga tagtaa axadka i abuuray, ina hanuunin doona, axadka i quudiya, ina waraabiya, axadka i caafiya markii aan xanuunsado, axadka ruuxda iga qaadaya haddana igu soo celin doono. markaasuu imaamu siriin wuxuu yiri, laa ilaaha ila allah. wuxuu tala saartay allana wax weliba waa uu ka kaafiyey. qisadan waxaan ka faa'iideynaa, mar weliba waxaad niyadda ku haysaa axadka ku abuuray, isla markaana arrinkaaga gacanta ku haya. wax weliba waad helaysaa, isaga ayaana kaa kaafin doono. waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan. haddii aad ka cusub tahay janalka maalmaha, fadlan sabskraib dheh si ay kuu soo gaaraan muuqaalada cusub aan soo dhigi doono. mahadsanid.